maalinkii dambe aabihiis ayuu shaqada u soo raacay. waxa uuna soo qaatay alwaax yar. alwaaxaasna wuxuu ka sameynayay baaquli ama saxan yar oo wax lagu cuno. aabihiis ayaa arkay wuxuuna yidhi, wiilkaygiiyo maxaad samaynaysaa? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ku xiran janalkeena soo dhawaada walaalayaal. waxaan rabaa maanta in aan idinla wadaago sheeko aad u xiiso badan una qiimo badan. wixii aad ka fahantay wixii kaaga soo baxana qaybta hoose commentiga inoogu reeb. maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiri jiray nin fuundi ah. ninkaas guryaha ayuu dhisi jiray. ninkan waxay isla noolaayeen marka ilmihiisa hal wiil ayuu markaas siistay iyo xaaskiisa. sidoo kale waxaa la joogi jiray aabihiis oo qof weyn oo da ah. ninkan noloshiisa kale waa iska fiicneed, laakiin waxa uu aad u dhibaateyn jiray aabihii dhalay. wiilka yar uu asiga dhalay laakiin arintaas wuu ka xun yahay inkastoo uu awood lahayn. mar walba aabihiis sida uu ninkan dhalay ugu qayliyo waa uu la yaabi jiray. wiilka oo asiga dhalay ee yar ayaa wiil wanaagsan ah. mar walba waxa uu ka xumaada ama ka xanaaqaa awowgiis sida loola dhaqmaayo. ninkanna waa uu isla fiican yahay, asigoo nin weyn ah aabihiis soo koriyo kusoo tiirita cabeele ayuu mar walba ihaanaystaa ama duleystaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday odaygii awowaha cunug yar u ahaa in saxan uu wax ku cunaya ka jabay. saxankii markii uu jabay ninkii qayle ayuu afka furtay. waxa uuna yidhi, sidee u jabinaysaa? ma waalan tahay? aabihii asiga dhala ayuu aad ugu qayliyey. waa waayeel, intuu afkiisa wax u galgelin lahaa oo gacmihiisa wax ku siin lahaa saxan yaroo ka jabay ayuu ugu qaylinayay. cunugii awowaha loo ahaa markaan dulqaadka ayaa ka tegay. waxa uu go-aansaday in uu asna aabihiis u diyaariyo sidaan si ka roon. maadaama arintan ay dhibayso, wuxuu go-aansaday aabihiis inuu asna wax u diyaariyo. maalin maalmaha ka mid ah aabihiis oo shaqada u socdo ayuu soo raacay. meesha shaqada ayuu usoo raacay. waxa uuna soo qaaday alwaaxyo. alwaaxyadii asoo sameynayo oo saxan wax lagu cuno ka sameynayo waxaa arkay aabihiis. wuxuuna yidhi, wiilkaygiiyo maxaad samaynaysaa? wiilkii muxuu ku jawaabay? wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay, aaba waxaan rabaa saxan alwaax ka samaysan in aan kuu sameeyo, si biri ka maalin intuu saxanka kaaga jabaado waayeel noqday aanan kuu canaanan. wiilkii aabihii dhalay oohin ayuu meesha qabsaday. waxa uu dareemay khaladka uu waalidkiis ku sameyn jiray. wuxuu dareemay waxa uu maanta sameynaya biri inay sugayaan. wiilkii waa uu ooyey. ninkii waa uu ooyey. wiilkiis ayuu kusoo booday, hab ayuu siiyey. laga bilaabo maalintaas aabihiis waxa uu kula dhaqmay dhaqan aad iyo aad wanaagsan. cuntadana gacantiisa ayuu ku siin jiray. wuxuuna ka dalbaday aabihiis inuu cafiyo. wiilkaas yar wuxuu badbaadiyey nolosha aabihiis. haddaba sheekadan waxaad ka fahantay iyo waxa tusaalaha aad ka qaadan karto qaybta hoose commentiga kusoo qor.